مثلا الدولة السلجوقية ما مقشين الدولة السلجوقية waxaa dhacay qarnigii shanaad meelahaasi waqti ah mashriqi al-arabi waxa qabsaday dawla al-fatimiyya oo soo qabsaday mashriqi ila masar ilaa iyo bayt al-maqdis iyo gaarkeed iyo shaam qaybo kamida inta waxa qabsaday dawla al-fatimiyya dawla al-abbasiyya ninba loo magacaabay buwayhiintii shiicada ahayd baa qabsatay dabeetana boqorku wuxuu iska noqday wax magaca labada dhanba shiica qabsatay marka caalam islaami labadani markay shiicada qabsadeen waxa bilaabmay baatiniyada iyo faafkeedii ismaaciiliyiintii ayaa bilaabmay faafitaankoodii waxa bilaabmay baatiniyiintii meesha tan kacbada kuwii qabsanayay waa markay soo faafay waxa soo dhan baa bilaabmay waxa faafay marka caalam islaami oo dhammaan ahlu sunna cagta hoostiisa la galiyay ودولة إسلامية هاني شيرين واحد شرتي آسيا صغرى دولة كردستانيت أو تركيا هيد دولة تركيا دولة قالابة هيد دقائق اللورين شريبا ها مدح دوصل رئيسة كمدا عيدا مدا هيستي وحاسين إنه دولة الجوق اللي هذا أيام ماشي دحلي إن عقل بدن بوها دولة نمدي بكردستانتين إن حكم بنقضي بقر كي ماشي شوقي ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kan hadduu sii joogo meeshu ka qaadaya warninkan ka takhallus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynaha wasiiradiisu inay ka caqli hooseeyaan dad mid ka fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulta haysta ma jecla cid isaga ka hooseysa isaga ka sarreysa ma jecla cid aad wadi karto weerad ka haysata ilaa nima aad wadi karin haddaad ka haysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha marka waxa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxa la damcay in laga takhalluso saljuuq ibn daqaaq wuxuu ogaaday in la dilayo dabeetana qabiilkiisii raggii ugu roonroonaa iyo ciidamo wuxuu la baxsan karayay rag 400 oo nin iyo wax gaadhaya buu goostay u baxsaday wuxuu u tallaabay dhulkii muslimiinta halkaasuu iska degay muslimiinta soo dhaweysay ninkii diintii baa loo sheegay wuu islaamay gruubkiisii la socday waa islaameen meel yar buu samaystay dawladdiisii baa sii xoog badatay way soo socotay waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yani طغرى البك ninkii la odhan jiray طغرى البك waa ibnu daawud ibnu mikaa'il ibnu saljuuq weeyaan طغرى البكaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dawlad yaroo xoogan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan oo yidhi war soo gaadh haddaadna soo gaadhi karto طغرى البك baa ciidamadiisa soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqdaad buwahiintii buu ka takhallusay dawla islaamiya baa dib u soo noqotay waa geeriyooday walaaladii raggii baa sii qabsaday waa alabarsalaan baa dhaxlay alabarsalaan wuxuu ka mid yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taariikhda islaamiga wuxuu ka mid yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya aluula waathaaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka mid yahay dawla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dawla alfaatimiya joojiyey bal dawla albisantiya dhul badan ka furtay dee malad dakar waa taqaanimo filay macrakada la yidhaahdo qisaskii ugu cajabta badan leh isagoo meelahaasi dagaal ka wada ayuu boqorkii bisantiyiinta qustantiin haystay dawla albisantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa 200 oo kun ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alabarsalaan baa loo sheegay oo 20 kun oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood 15 kun baa ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday maantadanaynu joogno laba midun baad heli taariikhdu nimay qorto magaca leh oo muslim oo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay oo dhegaysta maanta laga bilaabo boqor mayhi
sidii boqorna wuxuu amri maayo gaala way soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantiin wixii ila dagaal galayona way ila dagaal gali kartaan wixii iska tagayona waad fasaxantay waxay yidhahdeen boqor mar haddii islaam la difaaciyo aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaal galaynaa 20 kun baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka alla isla uu jabiyey dabeetana hudnu u diray war iska heshiina buu ku yidhi gaalkii dee ciidan muu haystaa ciidanka badan wuxuu yidhi heshiiskaad sheegaysa waxba kama jiraan nin baa la kaa dhigay wax iska dhici wuu diiday hudnadiina waa la isgalay intay jabiyeen bay boqorka laftiisii soo qabteen boqorkii Qustantiin baa la soo qabtay dabeetana la keenay maxaad filaysaa buu yidhi inaan kuu sameeyo saddex baa suurtagal buu yidhi waxaan kaa yeeli lahaa inaad iga yeesho oo inaad dee si xun ii dishid ama inaad itashiriso i xumaysid ama caynkaa wuu karaameeyo waxba kugu samayn maayo buu yidhi isfuro maxaan isku furtaa 1 milyan oo diinaar bixi baa la yidhi 1000 diinaar wuu aqbalay 1000 diinaar buu bixiyey dabeetana uu sii daayey intii halkan lagu hayay gaaladii surursato waxay dhahan boqorkiina mid kale caleema saareen gaaladii intii hadhay iyaga isku jabtay oo laba boqor bay yeesheen dabeetana mushkilad kala qabsay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay taariikhdii ala barsalaan waynu haynaa taariikhdii taqra albik waynu haynaa taariikhdii ahlu sunna ay soo celiyeen soo dawladda ma taqaanin ay tahay dawladdii ahlu sunna macaahidii la odhan jiray almacaahid الnidaamiya ma maqasheen taariikhda ahlu sunna nimankii soo celiyey macaahid الnidaamiya waa ala barsalaan inankiisii ala barsalaan ninkii uu ahaan jiray ra'iisul wasaaraha inankiisii malik shahna uu ahaa ayaa dhisay nidaamudiin la odhan jiray waa waqtiga ay culimadii islaamiga dib ahlu sunna inta meel lagu ururiyey faqiihii shaaficiga ee shiraazi ayaa madax looga dhigay ninkan muhadabka leh ayaa madax looga dhigay dabeetana waa meesha ka bilaabantay madhabka shaaficiga faafistiisii dambe ee juwayn iyo shiraazi iyo maxaa la yidhaha ghazaali iyo qoomankani ka soo baxeen ahlu sunna dib loo soo nooleeyey laakiin yaa inoo sheegaya taariikhda saljuqkii islaamiyey reerkan